Ma jirto cilmi baadhis hal mar la ikhtiraacay, hase yeeshee waxaa jiray daahfuryo soo socday muddo, kuwaasoo la kala dhaxlay lana sii hormariyay si aynu u fahanno bilowga taariikhda samaynta hubka nukliyeerka. Maadaama ay tahay inaan meel ka bilowno sheekadan, waxay ka bilaabmi doontaa fiisigisyahan u dhashay dalka Jarmalka oo la oran jiray Röntgen ayaa sanadkii 1895 wuxuu tijaabiyay maadada loo yaqaano cathode. Isla maadada cathode waxa uu ku shubay tuubo ka samaysan dhalo, taasoo si lama filaan ah u nuugtay hawo badan isla markii uu iftiinku qabtay, taasoo sii daysay iftiinka radiation-ka. wuxuuna xaqiiqsaday inuu helay raajito, taasoo uu ugu magac daray waxa fiisigisyahan kasta oo macquul ah oo ugu yeedhi lahaa waxaan la garanayn raajito cusub. waxaana uu si fiican oo qoto dheer u daraaseeyay fallaadhaha shucaaca wata ee kasoo baxaya dhaladan uu sameeyay. waxaana sawirkii ugu horreysay ee qof raajito laga qaada oo ka qaaday gacanta xaaskiisa. 2 asbuuc kadibna waxa uu noqday aabbaha baadhitaanka caafimaad ee casrigan. hal sano kadib 1896 nin la oran jiray Henri Becquerel, kaasoo ahaa injineer fiisigisyahan u dhashay dalka Faransiiska ahna ninkii ugu horreeyay ee cadeymo ka keenay radioactivity-ga, wuxuu ogaaday haddii uu ka tago cusbada uranium-ta ee ku jirta qaybta sawirka raajitada, taasoo ifafaalo noqotay inaysan tuubada raajitada cathode aysan tamar lahayn, tamartaasoo ka imaanaysa milixda dhexdeeda. Maria Curie iyo ninkeeda Pierre waxay daraasad ku sameeyeen halka ay tamartu ka imaanayso, iyaga oo kala qaaday 2 walxood oo cusub, kuwaasoo soo saaray wax soo saarka tamarta lama filaanka ah, polonium iyo rhodium, waxayna u bixiyeen ifafaalaha radioactivity-ga ama shucaaca. iyadoo sidaa tahay ayaa khabiir ku takhasusay fiisigiska oo dhashay dalka Ingiriiska oo la oran jiray Ernest Rutherford ayaa wuxuu bilaabay daraasaynta shucaaca, wuxuuna ogaaday inay jiraan 2 nooc oo fallaadhaha ah kuwaasoo ka duwan raajitada, wuxuuna ugu magac daray 2daas fallaadhood alpha iyo beta. waxaana uu daaha ka qaaday xaqiiqadan xaynta leh ee ah in tirada ugu badan ee atom ah ay ku urursan yihiin xarumahooda ama bu'da atomka. sidaas awgeed wuxuu daaha ka qaaday inay jirto energy aan dhammaad lahayn oo ku samaysan bu'da atomka, waxaana maanta loo arkaa inuu yahay aabbihii hubka nukliyeerka ama maskaxdii ka dambeysay nuclear energy. muddo kadib wuxuu daaha ka qaaday gamma radiation. sanadkii 1920 waxa uu ku nuuxnuuxsaday jiritaanka qayb dhexdhexaad ah oo ku jirta xudunta bu'da oo loo yaqaano neutron, wali waqtigaas aan loo hayn caddayn xooggan oo muujinaysa inay jirto tamar dhexdhexaadii. 1932 Chadwick wuxuu dib u eegay natiijooyinkii dadkii isaga ka horreeyay ay sameeyeen, wuxuuna xaqiijiyay inay jirto neutron, yacni energy dhexdhexaad inuu jiro. tijaabintii bacriminta nukliyeerka. iyadoo neutronku ku wareegsan yahay atomka, Hahn iyo Strassmann oo u dhashay wadanka Jarmalka waxay bilaabeen tijaabo ay ku kala qaybinayaan ama ay ku dhufanayaan unugyo kala duwan, waxayna ku dhufteen atomka uranium-ka, waxayna arkeen dhaqamo qariib ah oo aan weligood arag, waxayna xaqiiqsadeen kala qaybinta atomka inuu sii daynayo awood badan, waxayna ugu magac dareen fission ama fission binary. Szilard waa fiisigisyahan ku dhashay dalka Hungary, asal ahaana kasoo jeeda qoys Yuhuuda, wuxuuna wax ku bartay dalka Jarmalka oo uu dhalashada Jarmalka qaatay, inkastoo markii uu Hitler xukunka la wareegay uu iskaga hajiray wadanka isagoo u qaxay Ingiriiska, kadibna uu kusii gudbay dalka Mareykanka. wuxuuna ka mid ahaa ardaydii Albert Einstein. Szilard wuxuu fission-ka u aqoonsaday wadada kaliya suurtagal ka dhigi karta falcelinta silsilad tamar ah oo aan dhammaad lahayn, taasoo uu muddo dheer ka fakarayay, wuxuuna sameeyay isaga iyo Fermi daraasado isku dhufasho ah neutron ah, waxayna arkeen inay runtii suurtagal tahay, waxayna ogaadeen inay dunidu isbedeli doonto haddii ay mashruucan soo bandhigaan. Szilard iyo Fermi waxay warqad u qoreen madaxweynihii 32aad ee Mareykanka, Roosevelt, iyagoo uga digaya khatarta hubka nukliyeerka, maadaama ay ogaayeen in haddii uu Hitler ka hor samaysto
nuclear-ka Mareykanka inuu adduunyada rogi lahaa, walow xukunkii Nazi-gu qudhiisa ay ku jireen sidii ay u samayn lahaayeen nuclear. Inkastoo qoridda waraqadda uu kaalin weyn ka geystay, Albert Einstein uu ansixiyay in qorshahan lagu sameynayo hubka nuclear-ka inuu Mareykanka madaxweynihiisu uu ku dhaqaaqo, waana khaladkii ugu weynaayo uu Albert Einstein galay marka uu noloshiisa ka sheekeynayo. Kabacdi saxiixii uu ku dhuftay ayaa Mareykanka madaxweynihiisuna bilaabay inuu ku dhaqaaqo sameynta, walow ay carabka ku adkeeyeen qishna siiyeen madaxweynihii waqtigaasi Mareykanka maamulayay. Madaxweynuhuna wuxuu ka ogolaaday in daraasaad lagu sameeyo macdanta uranium-ta. Sanadkii 1942 Fermi waxa uu si guul leh u abuuray falcelinta silsiladda nuclear-ka ee ugu horeysay abid, kadibna waxay guda galeen howlgalkii loogu magac daray Manhattan Mission. Waxaana uu soo saaray 2 bambooyin oo midna laga sameeyay macdanta uranium-ta, midda kalena platinum. Waxaana la dhisay magaalooyin gacan ku samays ah si loogu tijaabiyo hubkan khatarta badan. Labadii dariiq ee loo maray bamka waa lagu guuleystay, waxaana lagu guuleystay bishii Luulyo 1945. Tijaabintii hubku markii uu soo gabagaboobay ee ay ku guuleysteen Mareykanka iyo xulafadii kala qayb qaadatay oo saynisyahanadii oo ka soo jeeday Fermi oo Talyaani ahaa iyo ninkii kale isaguna Yuhuudka ahaa, waxay Mareykanku go'aan ku gaareen in labadan bam ee loogu magac daray Fat Man iyo Little Man in lagu rido 2 magaalo oo ka tirsan Japan, Hiroshima iyo Nagasaki. 6 Agoosto iyo 9 Agoosto 1945 ayaa lagu riday 2 magaalo, waxayna ilbiriqsiyo gudaheeda isku bedeleen 2 magaalo qubuuro, sidii in qiyaamihii dhacay oo kale. Naar ayaa ku dhalaashay, waxaana ku dhintay 250,000 oo qof. Japan waxay si shuruud la'aan isugu dhiibtay Mareykanka 6 cisho kadib. Adduunkuna wuxuu ogaaday in Mareykanka la soo baxay awood aan marnaba loo babac dhigin, taasoo ah hubka nuclear-ka. Inkastoo ay ku guuleysteen hubka nuclear-ka, laakiin marnaba kama aysan fakirin dhibaatada ka imaan doonta iyo cawaaqib xumada laga dhaxli doono oo ku sababi doono bini'aadmiga iyo adduunkaba. Laakiin markii ugu horeysay tijaabintiisa iyo bilowgiisii ugu horeysay waxaa la rabay in loo isticmaalo jidka wanaagsan, sida in laga sameeyo leer laga dhaliyo oo dadka iyo adduunkaba manfaacad u noqdo. Wayna dhici kartaa oo haddii dhinaca wanaagsan loo adeegsado hubka nuclear-ka wuxuu bini'aadmiga noqon karaa mid ay ku manfaacadaan. Tusaale, qaybta caafimaad ahaan iyo waxyaabo daraasad ahaan waa loo adeegsan karaa, leer iyo tamarna waa laga soo saaran karaa. Laakiin dowladaha waaweyn markii ay samaysteen waxay bilaabeen inay aragtiyaashooda ku difaacaan, caalamka kalena ugu handadaan. Barnaamijkan intaasuu ku dhan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.